xamar oo isbedeshay oo qurux badnaatay waxa laga sheegayo waxa kama jiraan aad baan jeclahay aad baan idin jeclahay cadaankii baa taa ku soo dhaweeyay waxaan maanta halka ku soo dhaweynay fannaankeenii weynaa aan dhalay ahaa muddo badan qurbaha ku maqnaa dhowr 20 sano malaha waan isleeyahay ma isaga wala asaban jiri waa tahay maanta waxaan giga diyaaradaha aan ku soo dhaweynay garoonka aadan cadde fannaankeenii caanka ahaa ayaan soo dhaweynay maanta ee dalmaryare soo dhaweyntiisa waxaa cajiib ka sii ahayd wuxuu noqday fannaankii ugu soo dhaweynta fiicnaa ugu taageerahana badnaa uguna fanaaniinta badnaa ayuu noqday intaanu fanaaniin weliga garoonka isugu waayo maanta de cid maba maqnayn maanta garoonka cidi kama maqnayn airportka fanaan wax sheegtaba rag iyo dumarba marka damar waxaan kula horta soo dhawow dalkaagii markow yaa in fannaankeenna dhalinta yar ayaanu nagu dhiibayaa dhinaciga bidix fadhiya ayaanu dhiibayaa dayax dal murshe dayax ku soo dhawow saaxiib waa mahadsanta ustaad allah ku sharfo waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ka joogaan horena waa u soo hadlay oo maanta hadalkuna ma dhamaanayo waqtigana ma naguma socdo maanta maxaa la cid ordaysa ma jirto walaalkay dalmaryare waa marna fannaankayga qiimaha badan ee weyn aan jecelnahay aan taageerno maanta sharaf weyn noo tahay maanta maxaa la ii sheeg wax aan soo koobi karnay wax laga sheekeyn karo ma aha soo dhaweyntiisa wuxuu noqday fannaankii ugu ما شاء الله سو دوينت wanaagsanaa inta anigu fanaan aan ahaa arkay fan waxaan leeyahay walaalkay soo dhaw intaas oo dhan waxay ku dhacday waana fanaankii markaasi ugu maxaa lahaa saameynta wanaagsanaa inta anigu fanaan arkay ma sha Allah uguna soo dhaweynta fiicnaa intaan wadada maanta soo xilqaameen hurdada ka soo wada kaceen intaasina waxay ku dhacday jacayl isaga loo qabo ma aha wax kale maxaa la waxaan leenahay walaalkeen dalmareer ku soo dhaw magaaladaadii wadankaagii maxaa lahaa waxa ku joogo dadku jecel fanaaniinku jecel dad qiimahaaga yaqaano dad magacaaga yaqaano waxaan ku leenahay ilaahay ha ku sharfo sanadka cusubna waa ka sugeynaa iyo waxa noo wado haddana waxaan u dhiibayaa walaalkay Ismaaciil Arka dayaxawaad u maasan tahay marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan marka labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahay shakhsiyadaydu si gaar ah sharafna ay igu tahay soo dhaweynta walaalkay dalmaryare fanaan weyn fanaan Soomaaliyeed dadku iskuma jiree dalmar waa dalmar faahfaahin kale asaga shakhsiyadiisu uma baahna sharafay noo ahayd maanta inaan ka soo qayb galno soo dhaweyntiisa mid laga sheekay kara may ahayn cid walba indhaheeda oo macallina wana la arkayay waxaan aaminsanahay ka fanaan ahaantiisa marka laga soo tago dalmar shakhsiyadiisa iyo qofnimada iyo gobonnimada Ilaahay siiyay iyo qalbigiisa wanaagsan inay sabab u ahayd isbedelka maanta oo kaga duwanay soo dhaweyntii hore dhici jirtay inta fanaanin la soo dhaweynayay ana aaminsanahay intuu dalka joogo waxyaabaha uu qaban doono sidii maanta tii soo dhaweyntiisa ahayd ay mid kuwii hore ka duwanay u ahayd wax qabadkiisa damana inuu ka duwanaa doono waayo waxaan ogahay jacaylka ay bulshadiisa u qabto iyo kan anagu u qabno iyo kuwa asagu dadkiisa iyo taageerayaashiisa iyo fanaaniintiisa iyo dalkiisa intaba uu qabo mar walba maanta hawshu waa inoo bilow laakiin may dhamaanin dalmar shooyadiisa bandhigyadiisa programyadiisa way badan yihiin intaan waa bahdi fanka iyo bulshada maanta soo dhaweysan laakiin Soomaali intuu ka gaaro wuxuu doonayaa insha Allah inuu waqti fiican iyo waqti farxadeed baa la qaato asagana waxaan leenahay aadan ugu faraxsanahay dalkaaga marti ku matihid dalkaaga hooyo ku soo dhawow sharaf iyo karaamana way noo tahay barnaamijyo qurux badan oo ugu horeeyo showga imika noo dhigana saasaan wada ciyaari doonaa waa caadi la hurdaaniyo aadan idin salaam gees ma ka dhiga way aadan idin salaamahay kabtan baar horta alxamdulillah mahad ilaahay u sugnaatay waxaan horta maanta waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkeena dalmaryare horta dhihimeena soo dhawow in gurigiisa waaye waxa waaye gurigiisa xariiftan loo ugu maqnaa maana dib ugu soo noqday mar walbana waa ku taaganahay saaxiib sare aniga been ku mishaa 12 kan elboor ka tagay
anii laamiga waa isku ekaanay saakay formaaleef wallahi fanaan imaanayn weligay maaragtay uma istaagin meeshaas first one waaye dayaxna madaxiisa allah ka shubo wuxuu ii sheegay 10ka bishoo ii sheegay waxaan dhahay aniga tiimkeyga waa u taagannahay dalmaryare adoo timilaha inta ka tagtay dadku kuma yaqaanaan dhammayaa sii cartan ilaa meelahaasaa qaraaban jirte marka baagga aan noo soo samaysay aadaan ugu faraxsannahay reesta firdhi malaasteed baashe marka ani maalin walbaa kuu duceeyaa wallaahi maalin walbaa kuu duceeya ilaa wixii sor dib ugu soo celi camal u duceeyaa ma fahamte marka waa marka dalmar waxaan ku leeyahay 1000 jeer baraada waa kuu taagannahay yaa inta aad ka bixaysid maaragta waa kuu taagannahay annaga mar walbana garabkaagaa nahay saaka beenkuuma sheegay maamooyin waaweyn hataa way imaadeen meesha jaceyl laguu qaba dartiisa ilaa dhulkiyaa lasoo jabsaday xagga caadiyaa loo wada buuxay marka waxaan ku leeyahay brother welcome to Muqdisho waa is very important waay ma fahamtay ingiriiska waa halaas waay bas intaas la ma badna ingiriiska heesayga camal waay aad be careful waay marka halkan waxaan aad ugu soo dhaweynay maanta waan aad ugu faraxsanahay walaalkay dalmaryare fanaan weyn oo maxay bulshadiisuna ay sugaysay imaatinkiisa waxqabadkiisa insha Allah aan rajeynayno in maxay habeenkana barnaamijkiisana aynu ku soo qayb gali doono dhammaan insha Allah وكان انتصار كسو حريا waayahay dhammaantiin aad baan idin salaamaynaa waxaan halkan u wada fadhinaa kulligaya waa ninkan saaxiibkeena waan magaalada kusoo dhaweynay waqti badan aanu sugaynay inuu magaalada soo gaadho maanta dadkii si fiican bay kusoo dhaweeyeen saas weliba qoraxda kullays soo dhawo intaas waa kaftan marka walaalkii magaalada kusoo dhawow bulshada Soomaaliyeed ku kala nool dunida dacaladeeda gaar ahaan Soomaaliya Muqdisho sababta uu imaado dalmaryare waa wada ogtiin shoogaha la soo camiro waan hubaa dad badan baa imaan doona fanaaniin qiimo badan anada fanaan ma moogta ayaa halkan fadhiya oon dhageysto oo fanaaniinta u kala kacsana marka waa loo dhan yihiin inta kalena saaka dhan way taagnaayeen runtii qaar baa maaragtay reero lahaa oo reerahoodii aaday kala cararay oo iska qada doontay marka dhammaantood waa laga warqabaa macnaha hawshaada fanaaniintu u midaysan yihiin macnaha wax faragelin ma jirto macnaha wax loo dhan yahay waa marka walaalkay soo dhow ma jiri karto magaalada aday ku xoreysan tahay anu mar horaan ku sheegay saaka kaarka xabeer hore qaatay ilaa showgaaga dhamaada waan wadana intaas marka soo dhow walaalkay waxaan wada sugaynaa khudbadaada cajiibka qiirada leh waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin intana daawanaysa iyo inta ila joogta aad baan horta idin salaamayaa waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala ugu horreyn igu soo nabad celiyey magaaladeydii aan ku barbaaray ku waxbartay fanka ka bilaabay inaan dib ugu soo laabto muddo 17 sano ah kadib dib inaan ugu soo laabto xamar waxaa mahad gooniya iska leh fanaaniintayda oon iyaga madaxooda wax ku ahay iyo shacabkayga oon iyaga wax u ahay waxna ku ahay aad baan ugu mahad celinayaa intaa aad jeceshihiin iyo in ka badan baan jeclahay walaaladii fanaaniinta oo aan ogahay inay maanta kaliya maahane inta muddo wiigagii lasoo dhaafayba isku hawlayeen sidii si qurux badan aan magaaladan ugu soo dhawaan lahaa ama ay jacayl ay tusi lahaayeen walaaltinimo annagu fanaaniin haddaan annaga dadka iska jecel hadda waxaan ka walwalayay waraama fanaaniinta qaar la dhibay oo ama wax gaareen maanta oo ii sheeg lugu aan ka walwalayay walwalkuna waxa weeyaan waa wax naga dhexeeya oo walaaltinimo ah oo maxaan ku dhahaa naga dhexeeya annagu qabiil ma nihin iyaga ay qabiil ah iyaga ay walaal ah sida ay igu istaageen iguna istaagi doonaan anaan ugu istaagi doonaan oo ku mahadsan yihiin dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed dadkii walaalay ii yimid maanta airportkii iyo walaalay ii qaban qaabiyey sidaa quruxda badan la soo dhaweeyeen oo mahad celinayaa reer Muqdisho iyo New York haddii Allah uu dil yiraahdo ayaan waqti wada qaadan doonaa xamar oo isbedeshay oo qurux badnaatay waxa laga sheegayo waxa kama jiraan aad baan idin jeclahay insha Allah hal shay ku darsan hadda kadib marka xamar maadaama aad timid marka qof wacayso
waxaas ku hormaysa tali waan ku taaganahay tali ugu taaganaya qof markaa wacayso aad iyo aad taliya waan ku taaganahay aan leedahay والله aad baan idin salaamaya dhammaantiin waad mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa miidiyaha dhammaantood dhalinyarada youtube-leyda ah tviyada maxaan ku dhahday iyo dadka iyagu si jacayla snapchatka u duubanaya aad baan u salaamaya aad baad u mahadsantihiin qoraxdaas aad taagneydeen ilaahay jazaayigeeda hayda siiyo waa qof xun maydaan u samaynin qof walaalkiina idin jecel baad u samayseen abaalkaasna waa idin hayaa thank you so much mahadsantihiin